dalka Soomaaliya walaalayaal muddada ee duruufaha adag dowladnimadeenu ay ku soo jirtay iyo muddo kooban sidaan ugu soo kaba karno waaye waxa wasiirka Cali Xoosh uu ka hadlayay ee maanta ka muuqda magaalada Muqdisho muddo kooban dalku inuu soo noqon karo wax ma noo dhiman yihiin wax badan caqabada ma jiraan caqabada waaweyn oo gudaha iyo dibaddaba ah wayna hortaagan yihiin wayna jiraan wax ma qaldaynaa markaan wax qabanayna wax badan aan qaldaynaa nidaamkeena maamulka wax ka qaldan yihiin keena maaliyadda wax ka dhiman yihiin keena garsoorka wax ka dhiman yihiin keena wax soo saarka iyo maxaan ku raadaay yaa wax ka dhiman yihiin oo maanta waxaan joognaa annaga oo 8 milyan oo hektar oo dhul ah oo tacbama oo laba webi leh oo sanadkii laba jeer xilli roobaad leh oo biyaha dhulka ka hooseeyay ay maskaxdaada diidaysa sida khubaradu ay noo sheegeen haddana maanta inaan baahannahay kaalmo caalami ah in badan oo dadkeena ka mid ay ku nool yihiin inta soo hartay waxay sitaan raashin dibadda laga soo dhoofiyay ayay inta badan ku nool yihiin waxaas marka ilaahay nama badin ilaahay wuu noo nimceeyey wuxuuna siiyey wixii wax ugu fiicnaa annagaa isban annagaa u sabab ah annagaa ka gaabinay annagaa diidnay inaan maxaan ku rahdaay waxaan cunayno aan soo saarno Soomaaliya qaybo badan oo adduunka ka mid ah quudin kartaa marka baddeeda iyo barigeeda iyo xoolaheeda saddexdaba badda iyo bariga badda iyo beerta iyo barta marka la isku daro qaybo aad u fara badan oo maxaan ku raacday adduunka ka mid ah ayay quudin kartaa saas inaan gaaran laakiin hal shardi ay leedahay hal shardi oo intana aadan uga gudbi karin intana aadan uga leexan karin oo inaad la timaado shardigaasi ay tahay waa maxay waa dowladnimo dowlad shaqaynaysa oo xooggan inaan helno waa xooggan mugaan leeyahay qoryo waaweyn iyo madaafiic sida tabas ma aha qoryaha waaweyn iyo madaafiicda waa qayb ka mid ah oo loo baahan yahay laakiin dowlad leh institutions hay-ado dowladeed oo xooggan oo shaqaynayo oo sharciga uu maxaan ku rahay ku xooggan sharciga ku xooggan inaan yeelano waaye waxa aan u baahannahay maanta